inaan ka raali geliyo madaxweynaha gafkii uu u geystay Cabdullaahi Abuukar Zubayr oo weligiisba hal mar Hirshabeelle yimid nin deegaanka degan ma aha maanta tirada guud ee golaha wasiirada aan ku leenahay marka beelaha Jareerweyne la dhaho intuusan cali imaanin kuma lahayn nin yaqaan xaaladda dadka ma aha nin dadka say u nool yihiin og ma aha nin waaqici ma aha hal mar uu yimid kursiga soo doontay beeshiisana u diiday beesha sagaala u diiday kursiga bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah alladii callama bil qalam callama al insaana ma lam ya'lam annagoo qaar kamid ah siyaasiyiinta beelaha Jareerweyne ee dawladda Hirshabeelle ku matala kana mid ah labada gole ee dawladda Hirshabeelle xildhibaanana ah wasiirana ah waxaan halkan soo istaagnay in aan marka hore raali gelin buuxda siino madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Gudlaabe Xuseen oo mid kamid ah siyaasiyiinta dhawaangalka ah ee beelaha Jareerweyne ku gardarooday kuna tilmaamay mujrim iyo wuxuusan u qalmin madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane madaxweyne marka hore waxaan ka raali gelinaynaa qaladkaas lagugula kacay waxaan leenahay waa ka xunnahay wax ay jareer raali isaga yihiin ma aha waxay shiidla raali isaga yihiin ma aha wax beesha sagaal isaga ka soo jeeda ay raali isaga yihiin ma ahan dulmi iyo gardaracad uu kugu gardarooday ayay ahayd arintaas waxaan rabaa inaan halkan si buuxda ugu sheego beelaha shiidlo dadka deegaanka milkiyadiisa leh marka magaalada Jowhar la joogo iyo guud ahaan beelaha Jareerweyne ee deegaanada Hirshabeelle in ninkaas iyo kuwa isaga la midka ah ee canaasiirta ah ee siyaasadda u qaatay in ay dad intay fagaareyaal soo istaagaan mujrim ku dhahaan waxaan leenahay waxa ay sameeyeen iyo waxa idin sheegeenba waxba kama jiraan Cali Gudlaabe Xuseen madaxweynaha dawladda Hirshabeelle muddada uu xilka haayo ee uu madaxweynaha yahay waxa ay jareer heleen iyo shiidlaba wax aysan haysanin shalay inta uu madaxweynaha yahay waxaana loo ansixiyay degmada Xawaadley oo maanta leh gudoomiye nin shiidla ah taliyaha saldhigga oo nin shiidla ah iyo taliye ku-xigeenka saldhigga oo nin shiidla ah guushaas gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo nin shiidla ah degmadaas iyo xilalkaas waxay soo kordheen intuu madaxweynaha joogo waana guul shiidlo waa guul Jareerweyne waay sidoo kale golaha deegaanka degmada Jowhar waxaan ka nahay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Jowhar balcad waxaan ka nahay gudoomiye ku-xigeen arrimo bulsho mahadaay waxaan ka nahay gudoomiye ku-xigeen arrimo bulsho beledweyne waxaan ka haysanaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelle oo Hiiraan sidoo kale waxaan ka haysanaa taliye ku-xigeenka saldhigga booliiska degmada beledweyne ka hor intuusan Cali Gudlaabe imaanin kumaanan lahayn intaas Hirshabeelle xuquuqaad badan nooga maqan waa sax waxaan la siiyay waxaan leenahay waaye laakiin waxaan leenahay dad noo ogolaay ma jirin markii hore intaan anaga leenahay cid noo ogoleed madaxweyne Cali Gudlaabe ka hor maysan jirin laakiin markuu yimid ayaan helnay xuquuqaad intaas gaaray waxaan rajaynaynaa intaas iyo in ka badan inaan gaari doono insha Allah waxaan leenahay lama joogo xilli been iyo propaganda bulshada loo sheego waxaan joognaa xilli ay wax kasta arkayaan bulshada oo ay wax kasta marqaati ka yihiin maanta tirada guud ee golaha wasiirada aan ku leenahay marka beelaha Jareerweyne la dhaho intuusan cali imaanin kuma lahayn alxamdulillaah waxa naga maqan waa heli doonaa waxaan haysanana waa haysanaa waxaan rabaa waa la iga dambeeyaa hadalka inaan ka raali geliyo madaxweynaha gafkii uu u geystay Cabdullaahi Abuukar Zubayr oo weligiisba hal mar Hirshabeelle yimid nin deegaanka degan ma aha nin yaqaan xaaladda dadka ma aha nin dadka say u nool yihiin og ma aha nin waaqici ma aha hal mar uu yimid kursiga soo doontay beeshiisana u diiday beesha sagaala u diiday kursiga marka nin iska qaraarsan oo xanaaqsan waaye mudane madaxweyne annaga ayaa ka raali gelinayna gafkaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.